wartanoo kale yaa arkay ama yaa maqlay qisada labada gabdhood walaalaha ah oo halka nin isla guursaday. kusoo dhawaada sheekadooda. sheekadan maanta tiktoka ayay dhex taalaa, qof kastana gacanta iyo afka ayaa isku dhegay oo sheekadan maqlay. waxaa laga yaabaa inuu leefkas dhowr jeer uu kaasoo horbaxay oo looga hadlaayo labada gabdhood oo halka nin isla qabo oona isku dagaalaya, laakiin aadan fahansanin sheekada meelay u socoto. soo dhawaada, anaa idinkaga sheekeynaya. labadan gabdhood, gabadha bahweynta waxaa la dhahaa Nuura, gabadha kaleetana waxaa la dhahaa Nasra. waa laba gabdhood oo walaalo isku hooyo isku aaba ah. Nuura waxay degan tahay maxaa la dhahaye magaalada Garowe ay Nuura degan tahay oo lagu qabay ee reer ku lahayd iyo caruur. nolosheedina way iska wadatay, waxba kama qaldaneen ilaa ay xaalad caafimaad ee lasoo daristo. kadib markay xaalad caafimaad lasoo daristay, hooyadeedana waxay degan tahay iyo walaasheed Nasra wadanka Ethiopia. hooyadeeda telefoon u dirtay, hooyo waxay dhahday xaalad caafimaad ay haysato, waxaan rabaa in aan xamar iska soo daaweeyo, waxaan rabaa in aa iisoo dirtid gabadha walaashii ah si aan ciyaalka uga tagto. marka hooyadii waxay dhahday haye waa kuusoo dirayaa. gabadhii ayay usoo dirtay walaasheed ahayd si ay uga tagto ciyaalka ilaa iska soo daaweynayso. reerkeedii ilmaheedii gabadha uga tagtay, way baxday, xamaray aaday. Nasra iyadoo caafimaadkeedii iyo ku mashquulsan baa maalin kasta markay isdhahda ciyaalkaadii ka wardoon ay wacdo aa loo soo sheegaa in ay ciyaalkii waxbarashada aysan aadinba, ama iskool ama dugsi ay waxbarasho aadin oo ilmihiiba ay noqdeen ilmo guri joog ah. sababta keenaysana waxaa waaye ilmaha subax in loo kacay rabaan oo la daryeelo, kadibna maxaa la waxbarashadoodii loo diro. walaasheedii intaas ayay gabtay oo waxay noqotay qof habeenkii dhafra oo subaxina iska seexda. marka ama inta badan ninkeeda ayaa Nasro dhahay walaasha maxaa la dhahay ciyaalka uma kacdo, walaasha saan asaa laba dhexdooda ka shaqeynayay. gabadhiina xariiru la samaystay, walaasheedina dhinaca kaleeta ayuu ugu diraayay. ilaa iyo xitaa dadka dariskana way u sheegayeen in ciyaalkeeda ee waxbarashada markii ay wareysatay ciyaalkeyga maxaa la dhahay waxbarasho ma aadaan, dadka isku dhadhawaayeen ama asxaabta ahaayeen. ciyaalka inay waxbarashada aadin ayaa loo soo sheegi jiray. arrintii Nasro Nuura oo gabadha reerka lahayd way qaadan weysay, waxay is dhahday waxa ka faa'iideysid ma lahan, gabadhan maxaa la dhahay hooyadeeda iskaga celi. hooyadeeda wacda hooyo miyaha gabadhan walaashayda ah maxaa la dhahay dhibaatadaas ay ugu haysaa, ilmihii xitaa maxaa la dhahay aan ugu tagtay mas-uuliyadooda way kasoo bixi weysay, marka waxay dhahday ha iga tagto. hooyadii waxay dhahday iska dhaaf hooyo maxaa la dhahay gabadha walaashaada u sabar ha burinin. waxay dhahday ani muhiimad igu muhiimsan ciyaalkayga waaye, haddii ciyaalka aysan ii daryeelaynin ama waxbarasho igu diraynin ani waxay dhahday ma rabo, mana ila joogayso. Nuura markaas ma oga Nasra in ayba xariir ninkeeda la leedahay, maba ogaba. haye dhahday maxaa la dhahay hooyadii waxay soo wacday Nasradii, Nasra miyaha kasoo tagay dhahday gabadha walaasha haddii sas ku leedahay iskaga soo tag. way soo baxday, waxay soo aaday maxaa la dhahay Laascaanood, cide ay qaraabo yihiin. sida maamada ay sheegayso markaas xilli baaburaaca lacag ee Ethiopia ku aada ma aysan haysanin. Laascaanood ay soo aaday, hooyadeed waxay dhahday halkaana jooga insha Allah, Ethiopiana waa imaana waana soo baxaa. ninkii maalintii asagana guriga ugu dambeysay oo gabadha la buriyey, asagana boorsadiisu xirxirtay, wuxuu iska soo jaray aniga waa bixi rabaa, masala rabaa inaan shaqo ka raadsado. marka waaba kaasaaba gabadhii xaaladee u xanuunsanayd ayadii ciyaalkeedii sidii ayaa looga dhaqaaqay. sidii markii looga dhaqaaqay ay kusoo laabatay magaaladii ay deganeed. kadib maalin maalmaha kamid ah waxaaba la leeyahayba walaashaadii kula dhalatay aan soo aragnayba maxaa la dhahay oo Laascaanood degano ninkay adig ku qabay qaba. abaaheeley ninkeedana asagoo Masar aadaya ugu dambeysay, wallaahi waaba sheeko waalan. waxay dhahday saas miyahaa maxaa la dhahay sheekadii markii loo sheegay ee xaqiiqsatay ilaa iyo maxaa la dhahay dadka qaarkood waxay leeyihiin way soo aragtay, allahu aclam. laakiin gurigeediyaa la geeyey ilaa ay kasoo xaqiiqsato walaasheedii inuu ninka qabo. markaasay ninkii isku qabsadeen ee qaracantay. ninkii wuxuu dhahay walaalay miyahaa waaba iga furan tahayba. meesha ayuu ku furay Nuura, yacni hore uma uusan u furin. markii arrintaa lagu qabtay inuu walaashi guursaday ayuu furay. gabadhii bahweynta ahayd uu hore u qabay. baahiley baheertay midaan iskaraafku marsan waa wejiga.
waxayba taagan tahay web iscajibisaba aniga maxaa lahaay yacni waxay u hadlaysaa cadaawo meesha ugu xumeed yacni maxaa lahaay naag karti badan naag saan ah yacni ninka xoogaa kaaga qaaday camalayba taagan tahayba walle adduunyo nin joogo indha adayga isee isku kala majiiqanayso isee isyeelayso wallaahi qof yacni gabadha iska dhaafay annagaaba u dulqaadan karin balablabadeeda so hadda sheekadii way qaraxday waxaa waay maxaa lahaay social media imaatay labadii gabdhood leefay soo qabsadeen meeshay isku qabsadeen arrintii maxaa lahaayay meeshay uga hadleen labadoodiiba macal hooyadoodiyaa la keenay hooyadii waxay taagan tahay aniga waxba kama qaban kari gabadhaana markay shalay ay soo burinaysay ha soo burinayna ha kula joogtaan lahaa haddana tii yareedoo lasoo buriyay hadday ninkii sii qaadatay ee guursatay aniga maalintii guursanaysana iima sheegin haddana waxay leedahay hooyadii wax aan ka qaban karo maba lahanba arrintan dadka qaarkood dadkina waxay leeyihiin yacni maxaa gaar uga martay oo ula safatay gabadhaada yarta ahayd oo ninka soo qaaday gabadhan ayadoo xanuunsan oo ninkii maxaa lahay laga qaaday reerkii maxaa lahay buuq loogu furay aniga waxay leedahay maxaa lahay cidna lama safani maamadii waay aniga cidna lama safani laakiin waxba kama qaban kara horta maamada waxbay ka qaban kartaa oo soomaaliya maxaa lahay gabdhaha jooga haddii la dhaho duca iyo habaar naaheblaayo haddaa habaarkayga rabtid reerkaas joog haddii kalena ka tag haddii la dhaho wallaahi maalin cad ayay ka dhaqaaqaysaa horta ninkan maamada bilaashay u leedahay waxba kama qaban kari hadday dhahdo walaashaa ninkii qabay aad ka soo qaaday haddaad reerkaas sii joogtana inkaar abad ahaan kugu ogahay iyo ilmo naafa ah hadday dhahdo haddaad rabtid reer qurux badanna reerkaas kasoo dhaqaaq horta way kasoo dhaqaaqaysaa laakiin maamada waxaa dareemayaaba in ay gabadha la rabto ninka gabadhan waxay taagan tahay Ethiopia waxay ku nool yihiin xero qaxooti ah soo xerada qaxootiga iyo noloshii ayay dhibsatay waxayba door bidaba ninka walaashada ninkana sawirkiisa meeshaan soo saara asagana maxal lahay nin ilaahay xaalkiisa og yahay waaba ninka dhan Soomaaliya waxa isleeyahay abaar oo nina ka jirtaa u malaynaaba aniga abaar oo baahiya laga sheegay baahi nimeed ayaa Soomaaliya ka jirtaba hal nin ayaa waxa ku dhahay 10 naagood ama saf u galayaan hadda heer waxay taagan yahay walaalihii awal intuu tan guursado tan furtan guursado naagaha dhan waxa ku dhahay saf ka soo maro maala yacni uu ku guursado maala yacni ugu dhaqaaqo hadda waxa taagan yahay heer waxa walaalihii isla guursado awal waxa la yaabanaaba dumarka maxaa dhahay oo sida sahalka nin naag qabanaa kaleeto oo guursanayso laakiin waxaas wallaahi Soomaaliya waxa ka socda dayacaada guurka ka socda iyo bahdilka nooci ugu xumaa waay naagayow niman hadaa rabtaan Soomaaliya ka soo haajira niman fiican hadaa rabtaan ka soo haajira Soomaaliya nin ma jooga hal nin asaf loo galay